gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha qaybta ciidanka asluubta gobolka Togdheer ayaa xabsiga weyn ee Burco xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray maktabad balaaran oo akhrisa taas oo laga hirgeliyay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Burco maktabadaas oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan maxaabiista ku jira xabsiga Burco waxaana maktabadani noqon doontaa mid wax badan ka bedesha fikirka maxaabiista ugu horeynba waxa ka hadlay xariga jarista maktabadani dhalinyarada dalada maanmaal oo iyagu hirgeliyay maktabadani ugu horeyn waxaan u mahadnaqay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka gadaal cid kasto oo gacan ka lahayd maktabadan inay qabsanto ay ugu horeeyaan taliyaha jeelka weyn iyo sidoo kale qoraayo badan oo nagala qayb qaato ugu horeeyo qoraa Khalid Ciise ka akademiyada maalmahan markasta waxaan u taaganahay inaan sare u qaadno akhriska iyo qoraalka gobolka Togdheer aad buu mahadsantiin kulli anagu waxaan ka mid nahay dhalinyarada akademiyada maalmaal oo maxay heeday arrimaha ay ka shaqeeyaan ba ay tahay horumarinta bulshada iyo akhriska kulli waqti ilaa kulli 3 bilood baan hawshan soo wadnay kulli hawl dheer ka bacdi alxamdulillah maanta waxaan ku faraxsanahay in mas'uuliyiintii gobolka nala joogto anagoo dhameystirnay anagoo wixiiba qabanay marka maxay heeday dhalinyarada gobolka Togdheerna waxaan ugu baaqayaan leeyahay kulli waxba la iskaga daydaay anagu barbilow waanu nahay laakiin waxaan rajaynaynaa wax ka sii weyn inay u qaban doonto kuna xabsiga gobolka Togdheer oo waayo la isku meego lama yiraahdo meesha jeel uu weeyaan meesha waa la booqdaa meesha waa la arkaa kulli fikir qaldaman anagu ka aaminsan waqtiga aan iman jeelka laakiin waqtigii jeelka aan nimi waxyaabo badan baa noo suuro galay inaan ogaano sababtoo ah maanta waxaan ognahay dadka jeelka ku jira in wallahi 100% dibadaas aan u baxayn maahan 100% ay maxay ka nasiibadeen dadka kale dhulka jooga way waxay helayaan inay wax akhristaan way waxay helayaan inay quraankii bartaan way waxay helayaan wax kasta oo nolosha dhimo kuwa maanta hablaha ka maraya nimada halka maraya meel qofna xabsi dadku xumaday malaa meesha dadku qolaan lagu xidhxidhay waxaan leeyahay fikir qaldan bay aaminsantii kuwa xaamisan waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka Togdheer madaan shabaabkeedu hanan waa ayaan xumeeyna miya hablaha waxa tiin aranka kacay itaal gabadadkiina hore waydan aragteen idinka amaanada xilkiyo ee ka qaabili taliyaha xabsiga weyn ee Burco gaashaan la dhaxay Xuseen Yuusuf Xaaji xildhibaan Farxaan Mideeyo ka tirsan golaha deegaanka Burco halkaas ka hadlay hadladoodii waxa kamid ahaa sida tan gudoomiye markan xaqiiqda ku sheego waxa weeyaan dawaa xabsiga gobolka Togdheer meesha halka dhex fadhidaan maanta waa halkii waxa weey xabsiga gobolka Togdheer ballan waxay noo ahayd sidii madaxweynaha uu sheegay oo ku tilmaamay xabsigan inuu noqon doono jaamacad markuu furayay tiibaanu ka dhameynay inuu noqdo jaamacadii madaxweynuhu sheegay oo uu noqdo xabsi shaqeynaya waxbarashadiisa dhinaca kasta shaqaday diini tahay haday farsamo tahay iyo haday maadi tahay oo maanta ay dhalinyarada maalmaal oo runtii muddo dheer xabsigan hawshiisa waday oo aad iyo aad ugu hambalyeynayno sida run ahaantii riyadeeni madaxweynuhu inoo sheegay way rumowday ahayna jeel noqon karo jaamacad maanta waxaan joognaa jeelka asluubta ee Burco oo runtii ay ka hirgashay maktabad dhalinyarta akademiyada maanmaal ay ka hirgeliyeen oo maanta aynu furkeedii joogno maalintay bilaabeen ay lahaayeen hawsha oo bilaabaynaa iyo maanta oo u dhaxeeyo farqiga inta leegi intaasoo buugana maanta ay taalo oo nooc walba isugu jira akademiyadu waxa kale magaalada dhexdeeda ku leedahay maktabad weyn oo runtii laga faa'iideysto oo aqoon ahaan dhalinyartu iyagu iskooda ay u sameeyeen sidoo kale waxay qabtaan oo gobolka ay ugu hawlan yihiin carwo sanadeedka sanad walba la qabto oo imka bishan 7 hadii Ilaahay ka dhigay insha Allah ay qabanayaan oo 6 gobol ee Soomaaliland iyo gobolada kale wadamada inala jaarkaaba la isaga yimaado sumcad gobolka u soo kordhiya taliyaha qaybta ciidanka asluubta gobolka Togdheer gaashaan la sare Jaamac Baadi Cawad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaq dhankooda halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay faa'iidada ay maktabadan u leedahay maxaabiista ku jira xabsiga weyn ee Burco runtii hawshana waa hawl miisaankeeda leh waa hawl waxtarkeeda leh waa hawl loo baahan yahay oo loo baahnaa waa hawl Ilaahay maanta inoo suuro galiyay sababna ay u yihiin akademiyada maanmaal ay sabab u yihiin ay ku tabaruceen ay horumarka keeneen ay aqligooda tuujiyeen runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba waan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay jazakallahu khayran dadkiina baa wax u keenteen waxa ka faa'iideysan doona maktabadan maxaabiista sharciga khilaaftay oo halka ku xidhan oo aynu ugu talagalay qofku sidii loo soo xidhay si ka duwan isagoo ah inuu baxo oo meesha wax ka bartay oo ka faa'iiday oo aqoon yeeshay isagoon kii shalay ahayn
inuu baxo ayaynu ugu talagalnay idinkuna waa oofiseen waa fuliseen aadna ugu mahadsantiin anigoo ku hadlaya afkayga iyo ka taliyaha qaybta ee gobolka ciidanka asluubta iyo ka ciidanka asluubta dhammaan taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka wakiilka iyo dhammaan ciidanka asluubta ee gobolka waxaan idin leenahay mar walba idinku boorinaynaa jazakallahu khayran halkaasaynu ka sii wada socon doonaa hawshu ma dhammaato waa la kordhiyaa waa bilowdeen bilow wacan baa bilowdeen waxaa agteenna yaalla ee muuqda ayaa qabateen waxaynu rajaynaynaa wax kaloo ka sii wanaagsanna inaynu ku kulmi doonno insha allah ayaynu rajayn doonnaa saasaynu rajaynaynaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin annaguna hawshaa keenteen sideeda ayaa loogu camalfali doonaa allah ina soo waafajiyey inaan xabsiga weyn ee burco ee gobolka togdheer aynu ka asaasno maktabad ay ka faa'iidaystaan maxaabiista ku xiran xabsiga runtii waxaan u mahad celinayaa mahad ballaadhan iyo dhiirigelin baa isugu darayaa akaademiyadda maanmaal oo runtii dhallinyaradaas akaademiyaddaas asaastay ee ku midowday runtii ay ka tilmaaman yihiin gobolka horumarkiisa iyo waxqabadkiisa ee weliba dhanka akhriska iyo wixii kale ee runtii la halmaala aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa jazaakumullahu khayran waajibkiina iyo doorkiina baa gudateen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa bahda asluubta taliyaha qaybta iyo taliya xigeenka iyo taliyaha xabsiga oo runtii iyaguna soo dhoweeyey fikirkaas runtii wax ku oolka ah ee wakhtigiisana ku soo beegmay in laga hirgeliyo maktabad xabsiga magaalada burco xabsiyada kale wuu ka duwan yahay wuxuu dheer yahay runtii wax badan oo xabsiyada kale ee Soomaaliland aan lahayn haday noqoto waxbarashada haday noqoto akhriska iyo haday noqoto dhiirigelinta intaba ay mas'uuliyiinta asluubta ee heer gobol runtii ay u jeediyaan maxaabiista waxaan insha Allah rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan maxaabiista sidii horeba uga faa'iideysan jireen waxbarashada kala duwan haday noqoto diin iyo maadiba iyo maktabadan maanta loo furay inay hadii laha idmo ay wax akhriyaan oo ay maxay akhriska ay ku dadaalaan waa maxamed ibraahim british TV-ga qaranka Somaliland burco